inta la og yahay hal qof ayaa ku dhaawacmay rasaas ay fureen ciidamo ka tirsan Somaliland kadib markii dhalinyaro ka gadoodsan amar ka soo baxay magaalada Hargeysa ee Somaliland oo lagu horjoogsanayay ugaaska beelaha gobolada galbeedka Somaliland inuu ka soo tallaabo soodinta u dhaxaysa Somaliland iyo Itoobiya ee deegaanka Garayacawl ee degmada Boorama taasi oo keentay inay isku dhacaan dhalinyarada iyo ciidamada kala duwan ee goobtaasi ka hawlgalayay soo dhaweyntan oo ay ka dhex muuqdeen badiba hoggaanka dhaqanka ee gobolka Awdal marka laga reebo xubno kamida salaadiinta farakotiriska ee u sacabatumay arrimaha qabsoomida doorashooyinka iyadoo gobolka Awdal uu hore u qaadacay inay galaan doorashooyin bilaa awood qaybsiya xilli gobolka Awdal muddo badan uu ka tirsanayay Somaliland saami qaybsi la'aan afayeenka ugaaska beelaha gobolada galbeedka Somaliland Muuse Carab Dugsiye iyo qaar kamida bulshada gobolka Awdal ee goobtaasi ku sugnaa ayaa iyagu warbaahinta dareenkan la wadaagay talo ugu iimaanaya ummadiisa oo soo booqan jiray weligii dadkiisa meel kasta joogaana soo booqan jiray iyo maanta inoo iimaanayay waa ayaan daro markii saaka si nabadgelyo ku nimid dhammaanba salaadiintii gobolka Awdal oo dhan iyo dhalinyartii dumarkii way wada yimaadeen halkan bay yimaadeen farxad baan joognay markii uu ugaaskiisa soo taagay joogka uu isbedilay ciidamo fara badan oo military iyo booliis iyo cid walba la baan soo duldhigay waxaana amarna lagu siiyay inuu ugaasku Somaliland soo gali kareen taasi waxay cadeynaysaa tii sideetanayadii ka soconaysay Hargeysa oo kala ka socota halkan waxaan u sheegayaa dadka dibadda iyo gudahaba waa tii Hargeysa 80kii ka soconaysay ma hadli kartid ma joogi kartid ma dhaqdhaqaaqi kartid waa tii ay beesha dhexe diiday waxa weeyaan inakuna goortan diidi doono mooyaan hal la diidaan leeyahay anigu maanta musaacad busi waxa lagu eedeynayaa in siyaasiyiin iyo madax kasta gobolka Awdal ay qorshaha ay qayb ka hayeen ugaaska lagu hor istaago gobolkii dadkiisa u yimaanayay oo hogaamiyaha arintaasi yaa isleedahay yaa maxaad arinta ka jawaabsan adeer hadalkaasi waa hadal raqiisa waxa weeyaan dawladdu de shaqaalaheega ma matalaan gobolkan ninka u shaqeeya mashruuca qaata ma matalaan waxa matalaan dhaqan ba matala ugaaskuna waa dhaqankii waa kuwa wada tuganeed arkaysiin saaka 7 bay halka yimaadeen nimankana waa 12 iyo wax way toogan yihiin way joogan waa dhaqan siyaasad maahan ninka siyaasiga in Somaliland u shaqeeya annaka arrimeena ma baqoseeyaba soo dhaweyntiisa halka loo yimid ugaaska guud ee beelaha Galbeedka waad aragtaano dadku haysashada waxa uu yaqaanaan gumeysiga laakiin haysasho siyaasiya jirta tan waa tii siyaasiga ahayd waad aragtaan baroonada iyo in halka waxa jooga taliye araariyuda oo inta soo araariyo wata military iyo police waxa loo keenay dadka shacabka hubaysnaa inay soo dhaweynayaan ugaaskooga tan waxa u muuqataa inay tahay dulinimo badan oo dadkan iyagu hursadeen muddo 30 sano oo waxba ka diidi waayeen wax kasta oo lagu dayay tanati bay daba socotaa in badan baa idin wacdiyeynay oo idin sheegaynay reer Awdal halka ay wax marayaan iyo sidii wax yihiin wadiga arkay dadka aadaada 8 subaxnimo yimaadeen iminka waxa weeyaan 12 duhurnimo halka taagan yihiin waxa la leeyahay waas kuma talaabi karo oo Somaliland ma soo talaabi karo amarka waxa bixiyay xukuumadda Somaliland oo hoggaanka ka yahay Muuse wuxuu karaameeyaa dad aan cid dooran on caleemasaar iyo aan cidina xilu dhiiban oo magac la baxay maanta si kii la doortay halka taagan waa nasiib darro kale oo gobolka iyo dadka deegaanka ku habsatay waad arkaysaan ma soo gali karaa la yidhi Itoobiya way wada Somaliland baa diiday 1990kii waxay iyagu dalka ku burburiyeen bay maanta anaga dib noogu celiyeen suldaanadayadii iyo aqladayadii ugaaskayagii ayaa karaamada halka lagaga qaaday waxa yada buurta waxay ni haray ma jirto hasha weysha ku hor gowrac maanta waxa ugaaskiina cadeebda iyo salaadiintiini iyo uqaashiini la dhigay maatidiini ma gali kartaan la leeyahay Somaliland waxaad adigu shalay diiday ayaan anaguna maanta ka baxayna gobolkayga doorasho ka dhacaysa iyo dawladnimo aad noogu soo tala galaysa ma jirto